السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني إن شاء الله تعالى waxaan maanta ka hadlaynaa calaamaadka ama tilmaamaha lagu garto laylatul qadriga ilaahay subxaanahu wa tacaala hayna waafajiyo maanta waa maalin jumco ah waana 26 bishii ramadaan caawana waa 27 bishii ramadaan in sha allahu tacaala waxaan rabaa inaan calaamaadka aan waxoogaa ka tilmaamo ama tilmaamaha lagu garto laylatul qadriga tilmaamahaasi laba ayay u qaybsamaan qayb la socda habeenka dhexdeeda la garan karo iyo qayb markii habeenku baxo oo subaxii la gaadho la dareemi karaayo qaybta la socotaay waxaa la yidhahdaa waa wixii ku jeclaysiin lahaa cibaadada firfircoonina ku siin lahaa qaybta ka dambaysaana waxay noqotaa bishaaro qofkii muslimka ah xalay cibaadaysay markuu subaxii arko calaamaadkii loo sheegay isaguna uu bishaaraysanaya marka labaduba faa'iidadaas ayay kala leeyihiin calaamaadka laylatul qadriga waxa kamid ah inuu rasuulku ku tilmaamay sallallahu alayhi wa alihi wasallam inay tahay laylatul qadri habeen layla samha talqa la harra wala barida waa habeen sahlan oo fudud oo iftiin leh oo wanaagsan oo degan oo aan kulayl ahayn qabowna aan ahayn waa habeen rasuulku ku tilmaamay sallallahu alayhi wa alihi wasallam waagu markuu bariyo inay qoraxdu noqonayso daciif oo waxoogaa xamraa guduudna way leedahay waxoogaana dacfi baa ku jiro oo shucaaceeda iyo iftiinkeedu ma badna imaamu nawawi fi sharxi muslim ayaa wuxuu ku yidhi sababta ay daciif u tahay habeenka ayaa habeen nuur badan ah oo aad iyo aad u nuuraya sidaas darteedna subaxii qoraxdu waxay noqonaysaa daciif waa sifada koobaad wey waxaan isku dayaynaa tilmaamaha aan sheegi doono tilmaamaha saxiixa ah oo axaadiida saxiixa ku soo aroortay keliya inaan ku gaabsado wixii daciif ku jirana aan ka fogaado xadiiska hadda aan sheegnay waa xadiis imaamu albanina uu saxiix ka dhigay fi bacdi turuqihi culimada qaar daciifiya way jiraan laakiin sheekh albani fi irwa kitaabkiisa saxiix aljaamic yuu ku saxiixiyay lambarka 5475 tilmaamaha waxaa ka mid ah laylatul qadri rasuulku wuxuu yidhi waa la itusay waana la ihalmaansiiyey waxayna ku jirtaa 10 dambe ayay ku jirtaa waxaana is arkay aniga oo ku sujuudaya calaa maa'in wa tiin yacni tiinin wama yacni dhoobo iyo biyo ayaan subaxeedii ku sujuudayay sidaasaa laygu tusay arrintaasna wuxuu sheegay oo xadiiska saxiixaynka ku sugan inay dhacday habeenkii bisha ramadaan 21 ay ahayd rasuulkana sidii oo kale ku dhacday masaajidkiisa oo saqfiga kore u ahaa geed timireedkan iyo laamihiisa biyihii daroorinta ka yimid ayuu rasuulku ku sujuuday biyihii iyo dhoobadiibuu ku sujuuday walidaalika culimadu halkaa waxay ka soo qaateen waa inuu waxaa ka mid a inuu roob habeenkaasoo kala yimaado ayaa suuragal ah tilmaanta kale oo ka mid a calaamadeeda waxaa ka mid a rasuulku wuxuu yidhi tadlac ashamsu fii sabiixatihaa baydaa laa shucaaca laha qoraxdu way soo baxaysaa subaxii iyada oo cad oo aan wax shucaac ah aan lahayn shucaacu waxyaabaha dhinacyada u kala faafo oo maaragtay aan lahayn iyadoo cad bay subaxii saa u soo boodaysaa subaxa iyaga ah calaamaadkaasna waa calaamaadka iyaguna saxiixa fi saxiixi muslim ayay ku sugan tahay waana waxa la garan karo markii habeenkii ku dhaaftay oo subaxii marka waxay kuu noqonaysaa inaad ku bishaaraysato in rajadaada ay sii badato in wixii xalay aad qadimtay iyo camalkaad samaysay wax fiican u ahaa abaa hurayra radiallahu canhu ayaa wuxuu leeyahay waxaanu isla sheegnay habeenka laylatul qadriga ah rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalam kiineebaa xusuusta markii uu soo baxay dayaxu isagoo mithla shiqi jafna xeerada jeexeeda oo kale jafna waa xeerada waa weelka cuntada lagu cuno eed garanaysa weelkii xeeradii intii la qoro geedka laga sameeyo cuntada lagu ridi jiray
ragga lagu soori jiray martida lagu soori jiray haddii la kala jeexo la kala jebiyo dhinaceedu sidaasuu usoo godan yahay usoo qoolaaban yahay taasna waxay timaadaabay culimmadu leeyihiin uun fii aakhiri shahri bishu markii ay sii dhammaanayso halkaa marka waxaa laga qaatay laylatulqadrigu waxay ku jirtaa dhammaadka bisha ayay ku jirtaa taas iyadana daliilku iyuu noqonaya imaam ibnu cuthaymiin iyo keyrkoodba sidaas iyaguna u qaadeen calaamaadka waxaa ka mid a ayuha alaxiba lagu gartay laylatulqadriga quwat lidaaa wannuur fi tilka alleyla yacni habeenku waa habeen aada u iftiimaya oo nuurkiisu uu badan yahay sheekh ibnu cuthaymiin baa wuxuu leeyahay taa waxaa garan kara uun dadka baadiyaha joogi iyobaa garan kara meel aan dee inagu waad u joogta magaalada dadka ku noole nalalkii iyo iftiinkiiba magaaladu ka batay marka qofka baadiyaha joogi iyo meesha aan lahayn nal ayaa dareemi kara waa habeen tumaaniinatulqalbi iyo inshiraaxu sadrina uu ku badan yahay qofku wuxuu dareemayaa raaxatulbaal buu dareemayaa deganaan iyo huduu buu dareemayaa taasna culimmadu tajaaribtooda axaadiis ahaan kuma sugnaanin laakiin tajrubadii dadkii sulaxadii iyo culimmadii ayay in badan oo ka mida iyaguna iyo ku xaqiijiyeen waxaa ka mid a ayuha alaxiba calaamaadka qofka muslimka ah ee mu'minka ah in riyada lagu tuso laylatulqadriga sidii dhacdayba asxaab badan iyo xilliga ay ku arkeen riyadii habeenkii laylatulqadriga marka qofka riya ahaanna waa lagu tusaayo wuu arkaa ayib waxaa ka mid a calaamaadkeeda tajaarubta culimmada iyo dadka wanaagsan ay ku ogaadeen ama ay ku sheegeen inuu qofku helayo qiyaamka ladatan wa nishaad macaan iyo firfircooni baad cibaadada habeenkaa u helaysaa waa habeen ee kulligeedba ay tahay khayr iyo salaama iyo nabadgal uu yahay siduu ilaahay xataa matlaci alfajri siduu allaba ku sheegay habeen nabadgeliyo weeye addaxaak imaamu daxaak baa wuxuu leeyahay allah subxaanahu watacaala habeenkaa wax aan khayr ahayn ma qadaro habeenada kalena balaayaada iyo waxyaabaha kale ayaa la qadara ugu dambaynta ubay ibnu kacab baa waxaa loo sheegay saxaabiga jaliilkii qaariga ahaa cabdullaahi ibnu mascuud inuu yidhi ninkii sanadka dhan istaagaayay yusib leylat alqadri laylatulqadriga wuu heli ninkii habeen walba kaca sanadka wuxuu yidhi akhi walaalkay ibnu mascuud wuu og yahay laylatulqadrigu inay ku jirto bisha ramadaan oy ku jirto 10ka dambe oy ku jirto habeenada tirada isdheera oy ku jirto habeenka 27aad wuu og yahayoo wuxuu rabaa dadku inayna tala saaraninoo halkaa habeen ayna u wada tegine ay bisha dhan cibaadaystaan iyo sanadka dhan buu ka wadaa laakiin wallaahi aladii laa ilaaha hayru dhaar buu ku maray isagu ubay ibnu kacab saxaabiga jaliilka ahaa in habeenka waan garan buu yidhi waana habeenka 27aad ee bisha ramadaan ku jira weeyaan sida caawa oo kale insha allahu tacaala waxaa la yidhi maxaad ku garanaysaa ya abalmundir maxaad ugu dhaaranaysaa maxaad ku garatay waxaan ku garan buuri bilcalaama aw alaaya alatii dakarana almustafa sala allahu calayhi waali wasalam waa calaamadii rasuulku noo sheegay baan ku garan oo inaynan laa shucaaca lahaa subaxii markay qoraxda soo baxda shucaac inaynan lahayn waana aragnay buu leeyay marka ubayi saasuu ku dhaartay laakiin waxaa la odhan karaa sanad way noqon kartaa 27 sanad waxay noqon kartaa 21 sanad waxay noqon kartaa 25 sanad waxay noqon kartaa 29 allahu aclam marka waa la qariyay xigmad baana inoogu jirta in la qariyo intaas waxay ka mid tahay calaamaadkii iyo tilmaamaha saxiixa ah culimada iyo axaadiista saxda ee ku soo aroortay waxaan ka tagnay oon iska daynay calaamaadka aan saxiixa ahayn ama ducfigu uu ku jira axaadiistooda ilaahay subxaanahu watacaala hina waafajiyo qof walbow caawa ku dadaal oo ku celceli cibaadadana inaad ka qayb gasho iyo salaada iyo qiyaamka iyo sadaqaadka iyo khayrka ducadaadana ay u badato allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii sidii rasuulka sal lla ly slam caaisha radia allahu canha uu sheegay wajazakum allahu khayr wbaaraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu